arrintan waxa weeye qadiyadda dadka la midabta kooro oo ma la cunsuliyeeyo waa arrin adduunka si dabar go'aysa Soomaali haddaan nahayna waxaan dhaqan u leenahay wax turkuteena oo abliga soo gaar ah oo aad u guracan xanuun ayay ku haysaa dadka dhibaatadaas la kulma oo kala kulma bulshooyinka ay ku dhex yihiin qof kasta oo la kulma ayaana dareemi kara xanuunka ay u keenayso qofkaas maskaxiyan iyo nafsiyan iyo shucuuriyan bini'aadamka ilaahay baa wada abuuray waxa weeye ilaahay dadka qabaa'il uu kala abuuray laakiin inay isku kartaan weeye maanta waxa wadamada reer galbeedka aan ku noolnahay sida loogu nool yahay ama dadka u siman yihiin waa dareemi kartaa oo qofkii maaragtay jooga uu garan karaa waxay horumarka ku gaareen waa sinaanta dadka iyo cadaaladda wadan dhan iyo ummad dhan oo aan cadaalad ka jirinna sida u sii jiri karto waa garan kartaa waddankeena Soomaaliya muddo 25 sano ayaa waxaa ka jira dagaalo sokeeye burbur waxna waxa sabab u ah cadaalad darrada dadka lagu sameeyo ay ka mid tahay in dad lagu sooco haybtooda ama cidda ay yihiin taasoo macnaheedu cilmiyan iyo aqliyan toona wax ku salaysan aysan ahayn marka waxa weeye arrintaas waxa weeye arrin xanuun la weeye qof kasta oo damiirana arrin uu ka damqanayo weeye dhammaanteena meelaan joogno inaan ka soo horjeesano oo istaagno oo waxa weeye maanta bilow bay maraysaa waxa weeye meel wada gaarsiino arrin waajib ah oo loo baahan yahay qof kasta naftiisa uu ka bilaabo inuusan qof kale uusan macnaha ka soo qaadin qof kasta ka hooseeya adoo arrintan mutasan ku soo gabagabeynaya insha Allah waxaan rajeynayaa kulan intaan ka balaarin aan sugu nimaano arrintan halka aan ka bilowno assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh anigu magacaygu yahay Axmed Salaad Jaamac ku nool waddanka Jarmalka gaar ahaan magaalada Frankfurt magaalada Frankfurt xaggan waxaa maanta la isku yimid mudaharaad weyn oo ka dhacaya goobta tani ah oo ku salaysan qadiyadda beesha Gabooye oo sidaad ogtihiinba dhammaanteed lagu haybsooco wadamada Soomaaliya meel kasta ay joogaan dadkaas aad loo midabta waxaana dadka ka diin aanan ka mutaysan nala mariyo oo ku dhibaataysanahay xaggan waxaan ka cambaaraynayaa gaar ahaan dowladda Soomaaliya oo dhan oo gabtay haddaanu nahay beesha Gabooye miisaaniyaddii aanu ku lahayn waddanka oo gabtay oo aad iyo aad ay si xun noola dhaqmaan oo xaggan oo dowladaha Soomaalidu meel kasta ka jirto Puntland ha noqoto Somaliland ha noqoto Muqdisho ha noqoto meel kasta ay Soomaali wada nahay saddexda meelood waddanka Soomaaliya waanu ka degnaa gaar ahaan waddanka Somaliland oo aad loogu midabta kooro oo lagu dhibaateeyo oo lagu cunsanayo dadkayga aan waxba aan la barin oo haddii ay shaqo tagaan la oranayo Gabooye tihiin midgaad tihiin oo taas horta aad iyo aad baan uga xunay maanta annagoo dad Soomaali ah in la midabta kooro oo dad diin ah idila midab ah oo Soomaali nahay taasna waa ayaan darro oo waa waxay Soomaali ay ka degi laadahay ayna u dhismi laadahay marka waxaan soo jeedinayaa mujtamaca beesha Soomaaliyeed in dadka la midabta kooro ee annagu aanu nahay dadka beelaha Gabooye meel kasta Soomaali ay